waxaan rabaa dhammaantiin xildhibaanada sharafta leh ee madasha ku sugan waaye aragga waxgaradka howlwadeenada wasaaradda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xoogay kulli waxbaa jira la yidhi qolooyinka iyaga ku-xigeenada kulka waan iska afnaqaanaayo aad nooma dhibo laakiin bal wasiirre iyo rag hadda hawsha ku cusub baa jira hadalka waan soo koobaynaa waxaan u malaynayaa wasaaraddan iyo ahmiyadda ay leedahay waxaa si guud sawir inooga siiyey wasiir cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiir ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir oo sanad iyo badh muddo ku dhow hadda hawshan gacanta ku hayay annagu wasaaradda deris baanu ahaan jirnay oo halkan wasaaradda shaqadii shaqaalahan joogi jiray duruufahay soo martayna wax badan baan ka ogahay waxaan rabaa halkan inaan ka qiro intii uu joogay in hawsha wasaaraddu ay si weyn u dhaqaaqday barnaamijyo ayaa howlo la taaban karana laga fuliyey guud ahaan geyiga Soomaaliyeed khaasatan magaalooyinka oo laamiyo fara badan laga dhisay howlo badan oo arrimaha howlaha guud la xiriirana laga howlgeliyey waxaan yar isweydiinayay Soomaalidu badi dawladdii ka burburtay bay aad u xustaa oo iska wajiye badnayd waayihii la soo maray waxaan oran karaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyeyntu waa wasaaradaha waxqabadkoodii weli uu sii muuqdo meeshii aad tagtaba daar weyn oo xilligii kacaanka la dhisay ama mid kaba sii horreysay baad ku arkaysaa waa suurtagal wasaaradihii ka shaqaynayay sharciga iyo dastuurka iyo sarraynta sharcigu waxqabadkoodii inuu ku soo idlaaday 1990kii markii hubka la isu gurtay oo haddii sida daaruhu ay noogu dhisan yihiin sharcigu noogu dhisnaan lahaa maanta daaraha naftarkooda aanay duruuftan ku sugnaadeen waxaan ku rajo weynahay inaynu laba arrimoodba isku barbar wadno arrimaha la xidhiidha dhismaha laamiyada maqaal yaroon maalin dhaweed qoray baan waxaan ku xusay war qaran baa burburay haddii aad maqasho ma aha laamiyadii baa go'ay iyo buundooyinkii baa go'ay iyo daarihii baa burburay qaran baa burburay haddii aad maqasho macnaheedu waxa weeye qarankaasi sharciyadiisii ayaa hoos u dhacday ama meesha ka baxday oo waxbaa la xeerin waayey hadhowna waa la kala yardhoobay state failureka waxaa la yidhaahdaa saasuu noqonaya haddii tamaanta taagan aynu ku soo noqonno waa maalin taariikhiya waa xilli Soomaaliya ay ku jirto waaye cusub sanadkan bishay wuxuu inoogu bishay guulo waaweyn oo dawladdu ay gaadhay oo ugu horeyso uguna mudan tahay deyn cafintii oo 10 sano laga soo shaqaynayay maalinba in lagu dareeyay waa guul dadka Soomaaliyeed iyo dawladduba ay si wada jir u gaadheen maxay deyn cafini tahay markaa oday baa wax la yiri dirham baa lagu siinayaa intuu malaha carabaha tagayo warada sabeena igu bedel biir isagu tirada sabeenuhu yaqaanay marka dirhamkiibu xoga conversionkiibu garan waayo war marka sabeenaynu ku bedelayna deyn cafinta macnaheedu waxa weeye waxqabadkii aad maqli jirteen xilligii kacaanka waa la qabtay mid ka ballaaran baa la sii qaban karaa dekadda muqdisho ta Kismaayo ta Boosaaso ta Berbera laamiga ka baxa Xamar ilaa iyo Hargeysa taga laamiga halkan ka baxay Kismaayo aada warshadaha waaweyn aad aragteen ee balcad leh ee jawhar leh ee tii hilibka leh ee kabka leh ee sibirka leh waxaasoo dhamme waxay ku yimaadeen gurmad waxtar iyo amaah kharash oo adduun weynaha aynu ka helin carab iyo cajabba laakiin de waxa la siiyaa ama raadsanaa waa dawlad ee lama siinayo shabaab iyo qoliyo sharci darro ku shaqaynaysa iyagoo partners kale leeyihiin macnaheedu waxa weeye maanta
dadkii Soomaaliyeed waxa looga shaqayn karaa waxyaabihi ay in badan tabayeen mas'ala dhow baan idin soo qaadaya waxaan maalin dhawad safar ku tagay magaalada Baydhabo dad ku dhow 500,000 ayaa magaalada ku dul nool oo intii hore oo 500,000 ka badnayd oo ku noolayd ka badan ayaa magaalada cirifkeeda ku nool mudane wasiir dadkaasi waa dadkii ka soo kicitamay meelihii ugu soo wax soo saarka badnaa dalka Soomaaliya dhanka kale ra'iisul wasaaruhu dowlow ayuu tagay buundo walba oo ku taalay webiga Juba hadday noqoto tii Jamaame buur dhuubo baar dheere ilaa iyo halkan buundooyinkii webiyada ku yaalay ee qaarkood xilligii Itaaliyaanka la dhistay qaarna la dhistay xilligii kacaanka dhammaantood way burbureen arrimahaasna waa arrimo la xiriira hawlaha guud infrastructure-ka dalka laamiyadii iyo wixii aynu ka dhaxalnay dawladihii horena dhammaantood kab iyo bay u baahan yihiin daryeel oo hawl weyn baa wasaaradda ka socota barnaamij wadada dheer ee ilaa Hiiraan iyo dhex marta ee Mudug iyo Gado ayaa jira anoon hadalka idinku sii dheeraynayn waxaan rabaa inaan hal mar ku noqdo Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir arrimo waaweyn buu halkan ku xusay dhaqan cusub oo uu la yimi oo taariikhda u galaya oo dadku gurigu ka soo joodo baynu garanaynaa Sheekh Bashiir ba awow u ah sunnihii kamu baydhin sunnihii kama u baydhin wuxuu joojiyay wax walba oo u muuqanayay in ay culays ku yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ama kacanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay baa mushtariga Soomaaliyeed kacankii bay iga dhigantay bariya aniga kacanku waanuna isjecel waanuna ishaynaa ay sukay dhigeysanina Cabdisalaan wuxuu fursad u helay shaqada inuu halka ka sii wado isna waxaan ku aqaanaa adahmoodina inaan abtinimo ugu heelanayo Cabdisalaan sida qof walba halkan soo istaagay uu xusay waa nin ku sheegan dhowrsanaan dad la dhaqan iyo hogaamin waxaan ugu bushaareynayaa howlwadeennada wasaaradda in intaad khayr ka guurtaan aad khayr kale u guureysaan oo mararka qaar marka maqaadir la idin soo magacaabo dadka qaar bay soo raray war meeshii ma ka sii guurtaan Cabdisalaan waa nin idinku hogaamin doona aragti horu socda oo dhowrsanaan iyo turaale ay ku jirto taana ana idin ballan qaadaya waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado dawladda Soomaaliyeed aag walba oo ummadda looga adeegi lahaa waxay wax qabadka kordhin kartaa 99% the room for improvement fursadda aynu ku kobcin karno wax qabadkeena ama ku kordhin karnaa xad ma laha Cabdisalaan marka meel dihin baa timi waliba barnaamijyo fara badan oo World Bank African Development Bank iyo hay'adaha kala duwan ka socda ayaa yaala halkan oo aad si hufan haddaad uga shaqayso ummadda ugu adeegi karto taariikhnaad ka dhaxli karto daanu nahay hogaanka waanu ku garab taagannahay waanu ku taageeraynaa dawladii hore ee markaysa dadka qaar ay ku lumi jireen waanu ku tilmaamaynaa wixii aanu kugu dhaano aad iyo aad baan u salaamayaa halkan waxa fadhiya odayaashii qaranka in badan u soo shaqeynayay oday haddii uu ka mid yahay inaanu iyaga dhageysanay ahayd saaxiibkay fiqi baa fadhiya wasiir Xamsa fadhiya asxaab fara badan baa fadhida halkan ka arkaa